sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn u kobcayay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday 4 sanadood horteed. laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ma aha mid dhawaan bilowday. haweeney Soomaaliya ayaa dhawaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baadi goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan awoowayaasheed. sheekadaasi halka ay ka soo jeedo Aamina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo 13 sano waxa inoo haya Haaruun Macruuf. bishii Juulaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awoowayaasheed oo ay in muddo ah ku taamaysay. Maxamed Siciid Shabeel waa duqii hore ee magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan. habeenada kamid ah waxay iiga bilowday oo waxay tiri Maxamedow waxaan doonayaa walaalle in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii waxaana ku laliyay maadaama ay Soomaalidii u ekayn oo ay ku noqoto qof ajaanib ah dabeedna anigu waan ka aqbalay waxaan u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii. kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho. waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awoowayaasheed halka ay ka soo farcameen. safaaradda Turkiga tagnay waxaan u geynay dukumiintiyo aabaheed iyo awoowayaasheed ay uga tageen oo ay haysatay. safaaraddu waxay la siisay fiisa waxay la soo siiyeen ciwaaladii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa ay isu bedeleen. waxaan ku soo qaadanay fiisihii baan sidaa ku soo qaadanay waxaan ka soo degnay Istanbul wax dana kaba aan lahayn waan soo dhaafnay magaalada yaba Izmir baan nimid waan soo gudubnay waxaan soo galay Denizli. 2 maalmood markii ay ku sugnaayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda. maadaama aysan afka aqooninna waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo wadankaasi jooga kuwaas oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda. waxayna baadi goobkii ka bilaabeen xafiisyada dawladda. Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi. hoteelkii aan deganayn baan ka soo baxnay wiilal Soomaaliyaano ishelay aad bay noo caawiyeen Soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn aan kala qoqolomnayn meeshay arkaan walaalo ah friends ah inay weligood is aqoon jireen aad moodo marada macnaha ay wataan wada huwan kara marka aad bay noo caawiyeen wiilashii way nala kaceen waxaynu tagnay subax baynu baxnay waxaynu tagnay halka la yiraahdo gobolka. xafiiskii ugu horeeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen. Maxamed Cusmaan Shabeel ayaa sharaxaya waxa ay kala kulmeen. waxaan loo geeyay lawyer markii aan u sheegnay oo tusnay documentary-gii wuxuu yiri dadkan aniga aad u aqaana telefoon buu ku dhiftay. telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yiri waxaan hayaa dad ka yimid Soomaaliya oo Turki ah oo idin sheeganaya oo ciwaaladii idin wata. wuxuu yiri hal su'aal baan weydiinaya. su'aalku gabadha xaaskeyga ay weydiiyay sidii wuxuu yiri halka su'aal noo weydii aabaheed halku ka shaqeeya dad Soomaaliya jiro Afrika naga jiro way jireen oo waan u sheegnay wuxuu yiri waa isleenahay reerkaasi inoo hay dadkaas oo hadda u imaanayna saacad kadib baawur bay noo soo dirsadeen waanu raacnay dukaan magaalada ay ku leeyihiin bindageen wiilal kale naloo geeyay sawirada aan wadanay baan tusnay wixii baa la baaray waaba anigoo yar waa hooyaday wixii bay iswada yeesheen aabahooda waceen waxay dhaheen aabo reerkaasaan haynaa wuxuu yiri had ii weydii haday ii imaan karaan maxaa haynaa ayaga ba raadinaynay waa u tagi karnaa oday sawir buu ii diyaarsaday isaga oo dhalinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale aabaha ka soo saar aabahay waa kan habaa bis gabadheedu yiri waan aqbalay. waa gartay dadkii dhanku isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnayd dumaradii xaasaskii wixii halkii baa casumaad lagu sameeyay halkii baa isku sawiray. haddaba sidee ayaa Aamina awoowayaasheed ay ku yimaadeen Soomaaliya? safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho oo fududeysay safarka Aamina Cusmaan iyo Maxamed Siciid Shabeel ayaa ii sheegtay in Maxamed Cusmaan Khaliil Oulu uu ka mid ahaa askartii Cusmaaniyiinta
kuwaasi oo loo soo diray Soomaaliya dabayaaqadii 1890kii kadibna uu degay Soomaaliya oo uu ku guursaday haweeney Soomaali ah ayna u dhashay 10 carruur ah oo uu ku jiro Aamina Cusmaan aabaheed. wuxuu ahaa Cismaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awoowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaadsanin ma arkin laakiin taariikhdiisa sawiradiisa sheekooyinkiisa aan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii Yaman bay uu kaga xumaaday oo bacdeen Muqdisho yimid laakiin ma mid kale ka soo raacay ma diyaarad ku yimid ma garan karo ka bacdina muxuu sameeyay ka bacdina meeshii Muqdisho markii uu tagay uu ku guursaday saan maqlay waa gartay yuu guursaday wuxuu guursaday islaan Soomaali ah waa gartay ma kadib aabahay u dhashay sidii wadanka ku degay kamuusan soo noqonin sababtoo waxaan haysanaa Talyaanigii Caesar uu siiyay oo xataa qabiiliya Turki ay ugu qoran tahay malaha qabiilkii ay qori jireen Talyaaniga u maleynayaan Cusmaan Maxamed Khaliil oo ahaa Aamina aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday Soomaaliya oo ahaa wadankiisa oo ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka Turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka Maxamed Saciid Shabeel iyo Aamina Cusmaan waxay isbarteen sanadkii 1989kii waxayna isguursadeen sanad kadib waxayna isku dhaleen 6 carruur ah inkastoo Aamina ay ku dhalatay magaalada Muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin wadan aan Soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen horta qoyskayga iyo halka ay ka soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof Soomaali ah baan ahay horta run baan ku sheegayaa oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay carruurtayda ah jinsigayga iyo dhiigayga baa ah taas oo tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waa dareemi kartaa hadda adiga waxaad ku nooshahay qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xageed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weligay igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denizli inay gacan qabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dawladda Turkiga wuxuu yiri adeerkay dawladda Turkiga aad magan u tahay xaqeenaan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar Turkiyada tahay miiska markaad garaacdo aad khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadha qayladaada aan Harun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay idaacaddii galabnimona waa naga intaa